Waxaa soconaya diyaargarowgii ugu dambeeyay isla markaana maanta dalka dibadiisa loogu qaadayo afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimow oo dhaawac uu ka soo gaaray qarax ismiidaamin oo shalay lagu leeyahay magaalada Muqdisho. Dhaawaca afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Mudane Macalimow ayaa ah mid fudud marka la eego xajmiga uu lahaa qaraxa la leeyahay ee uu fuliyay qof nafti halliga isla markaana isku qarxiyay gaariga afhayeenka xilli uu hawlihiisa shaqo u dhaqaaqayay. Xukuumadda Soomaaliya ayaa xaqiijisay in xaaladiisu ay tahay mid wanaagsan, waxaana isbitaalka ku booqday ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo xubno ka tirsan golaha wasiirada ee dalka kuwaas oo ka xog wareystay xaaladiisa. Dadaal la xiriira in uu helo daryeel caafimaad oo dhammaystiran ayaa dalka dibadiisa loogu qaadaya, balse ma jirto xaalad adag oo xilligan afhayeenku uu ku jiro oo qasbaysa in dalka dibadiisa loo qaado. Dhakhaatiirtu dadaal badan ayay ku bixiyeen ilaa shalay oo isbitaalka la geeyay, waxaana xaaladiisu ay tahay mid soo hagaagaysa. Oo uu la hadlaya dadka waxa uuna la wadaagaya xaaladiisa, balse si loo bixiyo dadaal dheeri ah isla markaana loo sameeyo maamuus la xiriira mas'uuliyadda uu dalka u hayay iyo ahmiyadda uu leeyahay shaqsigan ayaa ah mid dadaal gooni ah xukuumaddu ay ku bixinayso sidii loo heli lahaa daryeelkiisa caafimaad oo dhammaystiran sida xafiiska ra'iisul wasaaraha uu xaqiijiyay. Agaasimaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Liibaan Cabdi Cali ayaana sheegay in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisaba ay ka go'an tahay in uu helo Macalimow daryeel caafimaad oo dhammaystiran, waxaana loo qaadaya dalka dibadiisa. Waxaa jira talooyin ka imaanaya dhinaca mucaaradka iyo dadyo kala duwan oo helada afhayeen Macalimow ay ku jiraan isla markaana ku aadan dalka loo qaadayo. Dad badan waxay diidan yihiin in loo qaado dalka Qatar oo horeyba ugu geeriyooday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahaana duqii Muqdisho Allah u naxariistee Injineer Yariisow oo xilligaas dad badan ay sheegeen in uuna helin daryeel caafimaad oo ku habboon, waxaana ay dalbanayaan in loo qaado dalal kale oo aan loo qaadin dalka Qatar, halka xukuumadda xubno ka tirsan ay daneynayeen in dalka Qatar loo qaado. Qatar durbaba waxay ka mid ahayd dalalkii ka hadlay qaraxaas isla markaana cambaareeyay iyada oo daneynaysa maadaama ay Soomaaliya xiriir dhow la lahayd in la geeyo dalkeeda oo lagu soo daaweeyo. Si walbaba ha ahaatee, xukuumaddu si rasmi ah uma ay shaacinin halka la geynayo, balse waxay dad badan dadaal ku bixinayaan in la geeyo dalka Turkiga oo halkaasi lagu soo dabiibo, halka xubno ka tirsan eheladana ay daneynayaan in dalalka kale ee caalamka la geeyo iyadoo laga fogaanayo isjijiidka siyaasadeed ee dalka ka jira iyo dalalka ay madaxda dowladdu xiriirka la kala leeyihiin. Si walbaba ha ahaatee, xukuumadda ayaa ku dhawaaqaysa goordhow saacadaha soo aadan dalka la geynayo iyadoo weliba diyaaradda qaadaysa la filayo in ay goordhow hawsheedu si rasmi ah u bilaabato. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa moodaa in uu isbedelay marka la eego qaraxyada dhacaya oo loo bedelay kuwo ismiidaamin oo madaxda si toos ah loola eeganayo. Inkastoo Macalimow qaraxii shanaad oo lala beegsado uu yahay kan isla markaana uu dhaawac ka soo gaaray oo ka badbaaday musiibada dhacday, haddana waxaa moodaa in hay'adaha amnigu ay bixinayaan dadaal gooni ah oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa qaraxyadaasi. Inkastoo ay adag tahay in qof ismiidaaminaya la aqoonsado maadaama hay'adaha amnigu ay xoogga saarayaan guryaha iyo gawaarida iyo meelaha kale ay suurtagal ka tahay in qaraxyada laga soo abaabulo. Saraakiisha ammaanka ayaa lagu wargeliyay in ay sameeyaan baaris dheeri ah markii uu dhacay qaraxa lala eegtay afhayeen Macalimow, maadaama qaar badan oo ka mid ah xubnaha mucaaradku ay sheegeen in afhayeen Macalimow uu noqonayo qofkii saddexaad ee qarax lala eegto isla markaana xafiiska ra'iisul wasaaraha ay aad iskugu dhow yihiin. Wararka ku soo kordha halkan ayaa daawadayaal kala socon doontiin.